warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya kuna socotay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya iyo hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa lagu soo gudbiyay cabasho ka dhan ah wakiilka hay'adda FAO ee Soomaaliya Richard Trenchard. warqadda ayaa ku eedeysay Mr. Trenchard inuu la yimid akhlaaq iyo habdhaqan aad u liita. waxaa lagu sheegay warqadda in habdhaqanka Mr. Trenchard uu wax u dhimay iskaashigii hay'adda FAO iyo dowladda Soomaaliya, wasaaradaha iyo maamul goboleedyada. xilli ayaa la yidhi iskaashi uu muhiim u yahay wax ka qabashada abaaraha taagan. waxaa kaloo warqadda lagu sheegay in Mr. Trenchard uu muujiyey ixtiraam darro iyo habdhaqan xadgudub ku ah saraakiil sare oo ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan wasiiro. waxay warqaddu sheegtay in Mr. Trenchard uu ku xadgudbay sharaftiisii wakiilnimo ee uu ku joogay Soomaaliya uuna yahay shakhsi aan u cuntamayn dowladda Soomaaliya. warqaddu waxay ugu baaqday qaramada midoobay iyo hay'adda FAO in Mr. Trenchard laga saaro waddanka ama la joojiyo shaqooyinkiisa oo ay ku jirto mudnaantii diblomaasinnimo iyo sharafeed iyo xasaanadii uu ku joogay Soomaaliya sida ugu dhaqsaha badan. tallaabadaasina lagu qaado waqti aan ka badnayn 3 maalmood marka la helo warqaddan. warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa la qoray 13 bishan Juun waxayna ku eg tahay maanta. ilaa haatan ma cadda in Mr. Trenchard laga saaray waddanka iyo in kale. dhinaca kalena afhayeen u hadlay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Joe Contreras ayaa VOA u sheegay inay weli socdaan wadahadallo ku saabsan xaaladda Mr. Richard Trenchard. As the letter indicates, consultations are now underway between the federal government of Somalia. sida warqadda ku cad waxaa socda wadatashiyo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo hoggaanka sare qaramada midoobay oo ku saabsan Mr. Trenchard. waxaana ka war sugaynaa natiijada wadatashigaas. mar aan weydiiyey afhayeenka in qaramada midoobay ay Mr. Trenchard ka saaraysa Soomaaliya waxa uu ku jawaabay I think it's premature to answer that question as the statement indicates. waxa uu yiri waxay ila tahay inay igu noqonayso arrin hordhac ah ka jawaabista su'aashaas. sida warqaddu cadaynaysa ayuu yiri dowladda Soomaaliya waxay wada hadal ugu yeertay qaramada midoobay si arrintan looga wada hadlo. waxaynu arki doonaa wejiga ay wada hadalladaasi yeeshaan. waxaa kaloo aan Joe Contreras weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedaha loo soo jeediyey Mr. Trenchard ee ah inuu ku kacay habdhaqan ka fog xirfadiisa. Well, without knowing the specifics of what has prompted those accusations. waxa uu yidhi aniga oo aan ogeyn waxyaabaha sida gaarka ah u dhacay ee dhaliyay eedahaasi kama jawaabi karo su'aashaas. waxaan kugula talinayaa ayuu yidhi inaad la xiriirtid wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya wixii caddayn gaar ah ee u hayaan habdhaqanka ka baxsan xirfadda ee la sheegay. laakiin anigu ma ogi ayuu yidhi waxa ay tilmaamayaan marka ay sidaas leeyihiin. ugu dambeyntii waxaan weydiiyey Mr. Joe Contreras in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee AMSOM uu kalsooni ku qabo Mr. Richard Trenchard iyo in kale. Well, he's certainly done an outstanding job as the country representative for the Food and Agricultural Organization. waxa uu yidhi dhab ahaan shaqo wanaagsan ayuu qabtay ilaa hadda intii uu ahaa wakiilka waddanka ee hay'adda cuntada iyo beeraha dunida. waxa uu si gaara ugu firfircoonaa ayuu yidhi howlaha ay qaramada midoobay kaga jawaabtay abaaraha Soomaaliya. sidaasi darteedna waxa uu qabtay shaqo aad u wanaagsan muddadii uu xilka hayay. Done a very good job during his tenure as the country representative of the Food and Agricultural Organization.